بسم الله الرحمن الرحيم. dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aad iyo aad u ballaaran gaar ahaan kaabayaashii dhaqaale iyo kaabayaashii adeega bulshada burbur lixaad leh ayaa ku dhacay waqtigan aan hadda ku jirno waxaanu ku jirnaa dib uga soo kabasho burburkii ku dhacay dalkeena khaas ahaan waxaan maanta diiradda saaraynaa dhanka waxbarashada ha ahaato waxbarashada hoose dhexe waxbarashada dugsiyada sare iyo waxbarashada jaamacadeed waxaa muuqata dalkeenu inuu galay xaalad ay waxbarashadu noqoto adeeg ganacsi oo gaar loo leeyahay taasoo markaas keenaysa waalidka saboolka ah ama ardada ka dhasha qoysaska saboolka ah inaysan marnaba rajaysan kareynin inay waxbarasho helaan gudoomiye waa jiri jiray madaxweyne waa jiri jiray waxaan kula xildhibaan waa jiri jiray lama arag intaan oo arday nin wax u qabta beesha asagu uu ka dhashay wax u qabta ma jiro baan aaminsanahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in aan ajir badan iyo wanaag badan iyo xasanaad badan inuu ka helo baan ilaahay uga baryaynaa waa agoon wiilkan marka waxaan ka rajaynaynaa dadaalka dheeraadka uu sameeyay mid ka sii badan inuu noo sameeyo hay'adaha haday noqoto iyo awalba asagana taa kuleen jiray wixii uu noogu qaban kara uu noo qabto intii awoodayada ah waxaan ku dadaalnay in aan ka taakulayno oo aan dhaqaale ahaan waxa weeye gunadayada iyo mushaharkayga inaan ugu tabaruco in dadkaas waalidka ah ay u helaan ugana farxiyaan caruurtooda inay u helaan dharkii ay waxbarashada ku tagi lahaayeen oo ay uga qayb qaadan lahaayeen waxbarashada waxaan halkaan iskugu nimid oon ka codsanaynaa hal sano iyo bar gudoomiyahana soo waday ilaahay baa mahad leh baan mahad u celinaynaa maantana uuna siiyay ardaygii $50 waxaan kaleeto aan halkaan aan u raacinayaa dadkii oo aan wax iska ilmihii noloshoodii iyo waxbarashadoodii aan iska bixin karinin codsi waxaan codsanaynaa hay'adaas oo walaalkay hay'adahaas inuu noo galo oo dib il naxariisna nala kugu fidiyo waxaan u mahad celinaynaa gudoomiye labaadka mahad Cabdilla Cawad waa mahadsantahay khayr Allah ku siiyo walaalkayo wax badan wax noo soo qabatay waxay ahaday hal sano iyo wax la jira ilmaha waxbarashadooda naga bixinaysay haddana waxaan rabnaa intii in ka sii fiican maanta calaacanu $50 nala siiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin khayr Allah ku siiyo mahad ku sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala ilaahan ku baryaynaa hadda kadib waxaan rabnaa ilaa ilmahan heer jaamacadood in loo wado waxaan runtii aan nasiib u yeelanay in aan hay'adda Tawfiiq Foundation aan anigu u aasaasay walaalo Soomaaliyeed oo runtii gacan badan iga siiyay sidii loo caawin lahaa ama loo soo heli lahaa arday u qalanta shuruudaha anagu aan u sameynay si aanu dhaqaalahayga kooban oo anagu aan mushaar ahaan u qaato aan uga caawiyo waxbarashadooda inay soo xulaan dadka ugu mudan ee xaq ugu leh in la caawiyo anagoo ka eegayna dhanka mudnaanta koobaad siinayna caruurtu ama dhalinyarta waxbarashada sare loo raadinayaa in ay ahaayeen arday si wanaagsan wax u soo baratay oo aanu eegno rekordkooda dugsiga hoose dhexe ilaa iyo dugsi sare sidii ay ku soo mareen inaanu eegno mahad Cawad ilaahay sharaf iyo ciise siiyo ilmo yar yar oo agoon ayuu nala caawiyaa dugsi hoose iyo dugsi sare iyo intaba asaga ka caawin jiray waa ku mahadsan yahay khayr Allah siiyo sharaf iyo ciise Allah siiyo ilaahay idinkiisa ilaahay baa u og ma aadan wax ma oga laakiin ilaahay ha ka ajar siiyo ilaahay idinkiisa waa u baahanahay waana u baahnayn aniga oo Qatra Maxamed Axmed laba wiil oo ii dhigata iskool Xasan Maxamuud Xasan Yoonis Maxamuud Xasan oo hadda dugsi dhexe dhigta walaalkeen waad ku mahadsan tahay waxaad noo qabatay haddana waxaan ka rajaynaynaa heer inaad noo gaarsiisid ilaa heer jaamacadeed waad mahadsan tahay xilkaad noo haysid Allah kula garab gala walaal aniga oo Saare Dhaqane Axmed wuxuu iga bixiyaa dugsi dhexe Cabdullaahi Cabdi Fataax Sheekh Yuusuf guul aan u rajaynayaa walaalkay wuu ku mahadsan yahay
cafi iyo caafimaad badan aan u rajaynayaa ilaa iyo heer jaamacadeed inuuna gaarsiiyaan rajaynaynaa annagoo cimri dheer iyo cibaadasan ilaahayna siiyo walaalkay 14 boqolka aan ku salaamayaa salaamullaahu calaykum anoo salaamaya walaalkeena sharafta leh oo xilka noo haya mahad cabdulla cawad ilaahay khayr badan ha siiyo agoomaha uu gacan qabtay oo waxbarashada uu furay ilaahay waxaan ka baryaynaa xilkaas ilaahay inuu la garab galo oo maxay ahayd ilaahay la ku guuleeyo soo u qaatay inta waxbarashadooda u dhimanna uu u dhammaystiro baan ka rajaynaynaa aniga magacayga oo ah Shamse Maxamed Cabdille Xirsi oo 2 cunug la iiga bixiyo oo labadaas cunug oo la dhaho Burhaan Cabdiqadar Maxamed iyo Cabdideeq Xasan Maxamed oo agoomo ah Allah kula garab galo guul baan ku rajaynayaa arday Soomaaliyeed oo baahi badan u qabta in laga taakuleeyo waxbarashada sare ama jaamacadda heer jaamacadeed oo soo dhameeyay dugsiga sare dalka gudihiisa ayaa fursad u yeeshay inay ka faa'iideystaan barnaamijka aan ku taakuleynayay ama aan ugu talagalay ardada qaarkoodna intii hore aan gacan ku soo siiyay inay dugsiyada hoose iyo dhexe ilaa dugsi sare ay ka soo baxaan qaarkoodna aan soo dalbaday inaan ka caawiyo waxbarashada sare ee ay dhiganayaan runtii qaarkood waa soo dhameeyeen waxbarashadii jaamacadeed iyagoo si sharaf leh waxbarashadoodii usoo qaatay darajo fiicanna kusoo gudbay oo hadda soo qaatay shahaadadii digriga koobaad ee bachelorista bismillaah magacayga waa Farxiye Cabdullaahi Khaliif oo ka socotay jaamacadda Hoob marka koobaad Allah mahad iskale marka labaadna gudoomiyaheena labaad ee Mahad Cawid mahad u sugnaatay galaaskayga waa semester 7 waxa ay dhiman hal semester insha Allah halka semesterna inaan dhameysto ayaan rajaynayaa mahadana Allah iskale magacayga waa Jaamac Saciid Faarax oo kamid ah ardayda oo gudoomiyaha waxbarashada ka baxsho khaasatan ardayda dhigata jaamacadaha semesterka labaad waxaan waxaan ka soo qalinjibiyay iskoolka awlaal sanadka hadeer marka gudoomiyaha maasan yahay maadaama uu naga soo baxshay waxbarashada heer dugsi sare ilaa heer jaamacadeed oo mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inuu noo sii wado dadaalkiisa oo sidoo noogu hagar baxay shalay maanta noogu sii hagar baxo noo sii wado oo baahida adduunyada ma dhamaato hadda digri aan haddaan dhameyno master noo diyaariyo jaamacaddan waxaa ka dhigtaa jaamacadda Somfield oo qaab madax ahaan aan ku helo haddaan free ku dhigto marka gudoomiyaha waa maasan yahay 100% waana salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالك كسلام يا قدوميها مهد عبد العود مقعي هو جمعال محمود أحمد أرضي ديجنجري جامعة هوب يونيفرسيتي أو هذا دميق قيبتك هذا جامعة باجكا وعن آدي هذا مهد علنا يا قدوميها بارلمانك مدن مهد عبد العود آدي هذا وفرح سنة هاي وحنا كرجينا يا لذلك ودتكيس أوهايو إنتان إنك بدنا أسميه anigana waxaan ka rajeynayaa hadda maadaama uu jaamacadda baashkii dhameeyay insha Allah qof kala garab kuma sugan heli hoona asaga noo ah waxaan ka rajeynayaa sida dadkooda u gacan qabtaan inuu gacan qabo doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halka uga mahad celinayaa gudoomiyaha baarlamaanka xigeenka waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barato ardayda uu jaamacadda u geeyay jaamacadda Hoob University meel fiican ay maraysaa jaamacadda sanadka u dambeeyay ayaan ku jiraa horumarkan qofka kaliya oo ka dambeeyana waa gudoomiyaha waan u mahad celinayaa waxaan ahay arday Shaafic Ismaaciil Cali waxaan ahay jaamacadeed bachelor degree waxaan ku jiraa last year ama sanadka ugu dambeeyay insha Allah hadda waxaan ahay semester 8 ka ugu dambeeyay buuga diyaanta ayaa ku jirnaa waxaan ka baxaynaa degree bachelor degree ugu horeeya horta awalan gudoomiyaha waa mahadsan yahay intaas oo waxbarashada soo waday oo heerka maanta aan taaganahay aan isleenahay maanta aqoontiin waxa way heerka u sareeyay ay joogtaa tawalan ilaahay mahadiis oo mahad celinaya jazaakum Allah khayr bahwaya maanta marka bachelor degree ataay oo Soomaaliya ay joogtay baahida way sii badanaysaa maxaa yeelay
adduunka ayaa ahoo maalinta ka dambaysa baahida way sii kordhaysaa oo waxa maanta waxa sidaan markaa bachelor degree dhameeyo ama dugsiga soo dhamayso waxa baahantay jaamacadeed oo bachelor marka u baahantay waxa sidaan haddana master degree ay sii baahan doontaa marka insha Allah taala hadda baahidana ku xigtay waxay noqon doontaa sidaan step kale u sii gali lahayn oo step ugu hore haddana aan cagta saaraya ka jaamacadeed ay noo dhamaan tumaantina joogto marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa masterkan sidoo kale aydan laga taxakulan doono aad iyo aad gudoomiyaha ugu mahadcelinayaa jazaakum Allah khayr السلام عليكم ورحمة الله. مقعي وعبد الخير خليفة عيسى ودكتور جامعة هوب هاتنا وجامعة ويسو إطلاعتي الحمد لله إله ما تسكله جامعة قابك أوتغي قابك الإيجي وقدوميها معهد عبد الله عود برلمان كلابات مركا جامعتنا هذا ويسو إطلاعتي الحمد لله وقوم هذا علناها haddii aan guddiga arrimaha bulshada waxaan sameynay garanaysaa baaritaan baan sameynay waxbarashada dhannayn hoos mataa marka baaritaankii aan sameynay waxaan u helnay dad fara badan oo aad iyo aad ugu mahadcelinaya guddoomiyaha Mahad Cawad taas oo ay aad iyo aad ugu mahad sheeganayaan iyagoo maaragtay sheegaya ama aan soo xaqiijinay inuu ka bixiyo iskoolada dad fara badan oo dhigta jaamacadaha iyo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare labadaba marka waxaan helay waalidiin fara badan oo iyagoo ka mahadcelinaya arrintaas marka anagu haddaan guddiga arrimaha bulshada si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa guddoomiye Mahad hawlaha uu qabtay waan ku garab taaganahay runtii wax badan oo badan baan maartay ugu mahadcelinaynaa hay-adda Suheeda oo ah hay-ad aan saaxiib nahay oo aan aad iyo aad ula shaqeyno oo ayna mas'uul ka yihiin xildhibaano saaxiibaday ah oo uu xildhibaan Yuusuf Xayle uu ku jiro oo ayna mas'uuliyiinteeda xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ay ka mid tahay in aan ka taakulayno dhanka gaadiidka oo aan ku tabarucnay baabuur loogu shaqeeyo dugsiyada waxbarasho ee ay Suheedo mas'uulka ka tahay jimciyadda anaga ka shaqeyno oo Suheedo la yiraahdo u shaqeyso dadka minority ama dadka la haybsooco wuxuu ka geystay gacan weyn haday noqoto mid dhaqaale mid gaadiid mid fikir waxaan dhihi karaa Mahad waa nin ummada ma ahan shakhsi oo qabiil amba koox yar ku matalo baarlamaanka amba guddoonka rumaantii waa nin jecel dadka oo Soomaaliyeed oo dhan inay noqdaan dad isku wada filan runtii waalidiinta Soomaaliyeed intii awood u leh ku soo dhabar adeegtay inay waxbarasho waxa weeye ka soo bixiyaan oo qaarkood yacni suuqa la soo fariistay yacni ama yaaya la soo fariistay ama wax kale ama bacdo la soo fariistay oo u soo dhididay haddana ardadoodii ay jaamacado uga soo baxeen qaarkoodna ay heleen shaqooyin ama heer dawladeed ha ahaato ama heer ka ha ahaato ganacsiga iyo hay-adaha rayidka ah maanta waxa weeye waxay gaarayaan waqti ay ku nastaan oo ardadoodaas oo maanta yacni waxa weeye ayagii usoo shaqeeya wixii ay soo geliyeenna waxa weeye mirahoodii gurta waxaan waalidkaas leenahay mabruuq 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 baan leenahay idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan idin leeyahay mabruuq waa idin faraxsannahay waa idinla faraxsannahay ardayay waalidkiina u mahadnaqa
walaalkiina hadduu iyo walaashiin hadday bannaanka jirto idin soo taageeraysay telefoon ha loo diro mabruuq ha la yidhaahdo cidda aanan ciddii wax tartay u mahadnaqin ilaahayna umaysan mahadnaqin aad iyo aad baanu magaciina ugu mahadnaqaynaa dadkii garabka idinku soo siiyey ee idinla soo halgamay haddii ay yihiin waalid haddii ay walaal yihiin haddii uu macallin yahay haddii uu saaxiib yahay intaba waa mahadsantihiin inaad intanoo arday ah wax noo soo barteen oo ummaddanna soomaaliyeed anfici doona aan u tahniideynayno waalidkii sharafta badnaa iyo walaalihii ka waaweynaa ardadan hortayda fadhida iyo cid walba oo soo taakulaysay ardayda in ay himiladooda waxbarasho sare gaaraan inaanu dhammaanteen u wada mahadnaqno oo aanu dhahno mahadsanidin magaciinaan ugu mahadnaqaynaa waxaan sidoo kale mabruuq leenahay ardada soo dadaashay ee culayska badan soo martay iyadoo dalka dhibaatooyin badan ka jiraan himiladooda siday u gaari lahaayeen maalin iyo habeenba u soo jeeday ee socodka dheer soo maray ee maanta gaaray guushii waxa weeye guushaasaan idinla qaybsanaynaa waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo mabruuq waxaan halkan mahad ballaaran ugu jeedinayaa dhalinyarta oo ragga iyo haweenka isugu jira ee igala howlgalay hawsha ay hayso hay-adda Tawfiiq Foundation ee aan u aasaasay in ay gacan iga siiso soo xulitaanka iyo diiwaangelinta ardayda iyo waalidiinta waxa weeye baahida u qaba in gacan la siiyo waxaan sidoo kale mahad ballaaran halkan ugu jeedinayaa anoo ku hadlaya afka dhammaan ardada ka faa'iidaysatay iyo waalidkoodba tabarucaadda ay ugu tabaruceen deeqaha waxbarasho jaamacadaha faraha badan ee maxalliga ah oo ay ugu horeyso jaamacadda Hope jaamacadda Somerville iyo jaamacadda UNAS oo intuba dalka gudihiisa ka shaqeeya oo aan maamulkooda iyo macallimiintoodaba uga mahadnaqayo sida hagar la'aanta ah ee ay uga caawiyaan ardada saboolka ah iyo kuwa aqoonta ah in la siiyo fursad wadaniyadeed oo ay dalkooda wax ugu qabtaan iyaga oo wax soo bartay oo waxa weeye la geliyay investment iyo maalgelin la geliyay lagana sugayo inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ay anfacaan waalidiinta runtii nala garab taagan taageerada iyo ducadana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu